بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay bishu tahay 22 bishii May 2018 waxaan isla garanay guddigii warasaabka gobolka Awdal oo magacaabay inay kala soo taliyaan sportska macnaha wasaaradda sportska ciyaartooyadii hore iyo ciyaartooyadii dambe ee xildhibaan ay ku jiraan guddideeda oo ka kooban 9 xubnood ay ka kooban yihiin 4 xildhibaan iyo ciyaartooyadii hore ee gobolka waxaan maanta nuxurkaygu macnaha ka soo saarnay shirkaas wuxuu ahaa in laba qodob oo ugu muhiimsan labada qodob oo ahaa mid dhaqaalaha macnaha ciyaartooyada inta gobolka ay xilka tagaya macnaha sidii loogu heli lahaa dhaqaale oo runtii iyadu meel isla dhignay macnaha sidii barnaamijka loogu sameyn lahaa dhaqaalahaas macnaha loogu kabi lahaa xukuumadda haday noqoto hadii kale noqoto waxa ay u baahan yihiin marka qodobka labaadna waxa ahaa in refreshment lagu sameeyo ciyaartooyada oo runtii ay jiraan ciyaartooyo ka maqan macnaha kuwan hadda jooga oo way aragnimo uga maqan macnaha jooga magaalada dhexdeeda oo runtii cabasho iyo waxyaaro ay ka tabanayeen macnaha wasaaradda laftarkeeda hawsha iyada laftarkeeda noo xalino oo meel saarno iyada laftarkeeda meel fiican bay noo socotaa inta badan waanu dhameynay waxaan rajaynaynaa sanadkan inaan macnaha koobka gobolada macnaha koobka Somaliland gobolada macnaha loo qabanayo inaan soo qaadno runtii aad baan ugu rajo weynahay in halka macnaha meel badan marka loo eego sida sanadkii hore ay ka wanaagsan tahay sanadkan maanta runtii rabno akhlaaqiyad inaan ku doorano dhalinyarada inay noqdaan kuwa u jajaban oo aqoon u leh macnaha sportska inay ka qayb qaataan runtii oo macnaha wax qabad ay soo hooyaan runtii ka sugayno aad iyo aad baan macnaha ugu haweynahay inay macnaha natiijo fiican ay la soo hooyin doonaan insha Allah waxa sheegteen horta guddidiinu inaad carabka ku dhufateen inay ka tala bixiseen in fan loo helo ama dhaqaale loo helo sportiga halkeen markaa ma sheegteen meelo ila laga helay dhaqaalahaas runtii haa waan isla taabanay waxa kamid ah runtii dadka daneeya sportska haday dibadda joogaan iyo haday gudaha joogaan waxa kaloo macnaha isla taabanay dadka macnaha barnaamijka oo runtii aad iyaga laftirkooda aad u jecel sportska macnaha inay qayb ka qaataan iyaguna noo diyaara sharaakadaha ayaa kamid ah iyo budgetka u yaala macnaha dawladda hoose ay ku leeyihiin maadaama guddidiina ay tahay saadiga sheegayso guddi tala bixineed oo kaliya guddi fulineed aydan ahayn inta in leeg baad ku kalsoontiin in talooyinkiina ay noqonayaan kuwa meel mara runtii boqolkiiba boqol ku kalsoonahay oo macnaha taas macnaha ugu sareysay gobolka madaxweyne gobolka ugu sareeyay barasaabka maadaama guddidan magacaabay awoodna u leenahay inaan macnaha hawsha guddi fulineed laftarkeeda aanu sii magacaawno hawsha noo qabato oo eegmano aad iyo aad macnaha ugu rajaynahay hawsha inaan qaban karno inoo qabsoon karto in ciyaartooyga la soo xulay waa wax adag haddana waxa soo baxay ciyaartooy aad u ciyaar wanaagsan walow aanay jirin garoomo ku filan ay ku tababartaan oo inta badan ku ciyaaraan garoomo yar oo todoba ciyaartooy gobolkiina ama degmadiina aanay jirin wax garoomo waaweyn oo haatan ay ku ciyaaraan maxay idinka qorshaysan qaabka aad soo xulisaan iyo xagga garoomada runtii maxamed horta way xulku wuu jiraa macnaha waa la soo xulay hadda trainingkii bay ku jiraan laakiinse waa in yaroo ka maqan ciyaartooyo la tabayo oo sanadkii hore ku jiray oo runtii sir diideen tababaraha dabadeedna arrintaa iyada waxaan garanay inaanu ka qayb qaataan imika macnaha lagu soo daro oo macnaha koow ka tahay macnaha waxa imika codayna maahe waa xul jiro oo shaqaynaya inta ka maqan ciyaartooyada ay tabayaan inaanu ku soo darno macnaha kala qayb qaataan dhinaca garoomadana maxaad ka qorshaysteen garoomada insha Allah garoomo wax badan baa noo qorshaysan oo macnaha councilkiiba hadda macnaha ila jooga laftarkooda in garoomo badan loo helo si macnaha sanadka dambe loo helo macnaha ciyaartooy tayo leh macnaha aad u badan oo macnaha sida lagu xulanayaa runtii way fududaan doontaa waan marnaya insha Allah